Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Sidee baad ku dareemaysaa haddii aad fashilantay? Sidee baadna uga badbaadi kartaa fashilkaasi? Maxaase qabanaysaa haddii aad ka gudubto fashilkaasi? Su'aalahaasi ayaan uga jawaabaynaa muuqaalkeena. Subscribe saar haddii aad nagu cusub tahay, share-na dheh. Waxaad ku dareemi kartaa inaad fashilantay marka aad weydo waddo aad u marto horumarkaaga, oo ay kaa soo xirmaan albaab walba oo aad ka bixi lahayd, oo qorshahaaga kuu toosin lahaa, horumarkaagina aad ku gaari lahayd, oo aad si walba dhinac uga marto, aad natiijo ka keeni weydo, kadibna aad ku xajisto, aadna ka doorbido wax kale ama aad fakir meel la fadhiisato. Haddaba sidee baad uga gudbaysaa? Waxaad uga gudbaysaa way sahlan tahay. Waxaad beddelaysaa oo kaliya qorshahaaga. Haddaba ma aha horumarka, haddaba ma ahan hamigaaga. Ha isdhihin meel dhow ayaad taagan tahay ee soo bilow hawsha, waayo gadaal ayay ka khaldan tahay. Quraan alif laga soo toosin, albaqra kuma toose waxaa laga yaabaa qorshihii hore inuu kan kaaga sahlan yahay, kan inuu kaaga dhow yahay. Samee wax walba oo aad horumarkaaga ku gaarayso. Waad guuleysanaysaa. Marka maxaad samaynaysaa haddii aad tii hore ka gudubto, aadna beddesho qorshahaaga? Waxaa loo baahan yahay dadaalkii hore ka badan, hawlgalkii hore ka badan, fikirkii hore ka badan. Marna ha caajisin, haddii kale sidii hore camal ayaad noqonaysaa. Kadibna waxaad is oranaysaa adigu ma qaban kartid hawshan oo idil. Waxaa dhici karta inaad buuq isku furto iyo problem. Samee sidan, kana leexo sidan.